jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Brisbane ayaa si diiran u soo dhaweysay safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Australia, Dr. Faisal Ahmed Salaad. Gudoomiyaha jaaliyadda Mudane Aweys Mooge ayaa munaasabada ka jeediyay hadal soo dhaweyn ah oo uu ku muujiyay farxad iyo qiimo ay jaaliyadda siinayso booqashada safiirka. Isagoo oo xusay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo xiriirka u dhaxeeya safaaradda iyo jaaliyadda. safiirka ayaa kulamo muhiim ah la yeeshay bulshada Soomaaliyeed, kulamadaas oo ku qabsoomay xarunta cusub ee loo yaqaan Somali House, aqalka Soomaalida ee magaalada Brisbane. Inta uu socday kulankan waxaa diiradda lagu saaray iskaashiga adeegyada safaaradda iyo sidii loo horumarin lahaa doorka jaaliyadda ee Australia. Munaasabada waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, ganacsato, aqoon-yahano, dhalinyaro iyo haween. Waxa ayna noqotay mid muujisay wadajirka iyo xoojinta xiriirka wada shaqeynta ee u dhaxeeya safaaradda Soomaaliya iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee Queensland. Munaasabada ayaa sidoo kale astaan u noqotay muhiimadda ay leedahay xarunta Somali House oo ah meel midaysay jaaliyadda kana shaqeysa horumarka iyo isku xirka bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Queensland. mudane safir soo dhawow. Brisbane waxa ku dhaqan bulsho aad iyo aad u qiimo badan, aad iyo aad ma taqaana bulshada ugu muuqda wadankan Australia qaybaheeda kala duwan sida ganacsiga, waxbarashada iyo ma taqaana heer walba oo ka tirsan wadankan. Waxaynu rajaynaynaa in imaashahaaga uu bridge u noqon doono wadankeena Soomaaliya isku xirkiisii iyo qurbo joogta reer Brisbane. Brisbane waxaa jooga ganacsato aad iyo aad u qiimo badan oo u jeeda meesha hadda aynu joogno inay fangareeyeen oo maartay soo saareen. taasoo ma taqaana ganacsatada ay wali awood u leeyihiin ama ay sameyn karaan in wadankeena hooyo oo xaaladda hadda ku jiro in isna ay ka saari karaan. Marka soo dhawaan ku leenahay kala socda soo dhaweynaynaa, waxaan leenahay magaalada ku soo dhawaada, dadkiinii baad u timaadeen, xaqiiqatan aad baan ugu baahnayn safaarad. safiir Faisal aad u soo dhawow, kulay nin qurba joog ah oo maaragtay garanhaya nidaamka iyo challenges-keena haysta weeye. inta shirkan soo qaban qaabisay iyo culimada iyo haweenkuna aad baad u mahadsantihiin. marka maanta inaan helno representative oo caawinayo ganacsadaha especially financial systemka waa wax weyn ayay noo tahay run ahaantii. markaan ka qayb galaynay oo master selection lagu sameynay dagaal badan iyo waxaan ka qayb galnay iyo ord badan aan ka qayb galnay. marka in waxaan ku helnay si aan oo easy ahayn ayaan ku helnay in master la geliyo NPP system East Africa dhan isku xiraayo. marka hadda maanta ku ahaasana safaarad oo noo ordayso muhiim ayay noo tahay. magacaabistaada waxa ay muujinaysaa sida dawladda Soomaaliya ay uga go'an tahay inay xoojiso ama ay soo celiso xiriirkii kala dhaxeeyay dalkan Australia. horta waxaan u mahadcelinayaa dawladda Soomaaliyeed oo runtii garatay in aan nahay community aad u awood badan oo la dhayalsan karin. inta badan dawladuhu safiir ma magacaabaan haddii aysan jirin dareen war meesha horta dad ma inaga jiraa. su-aasha marka laga jawaabaa la yidhaahdaa dad noocee ah inaga jira. haddii la dhaho dad waxbartay corporate worldka ku jira wadankaasna ka muuqda ayaa waxaa markaa la dhahaa marka they deserve in safiir loo diro. marka mudane xasan sheekh iyo ra'iisul wasaaraha iyo tiimka xukuumadaba aad baan ugu mahadcelinaynaa inayna aqoonsadeen inaan nahay dad jira. aan soo dhaweynayaa safiirka Dr. Faisal Ahmed Salaad oo maaragtay si sharaf leh caawa inoogu soo booqday magaalada Brisbane. waxaana leeyahay maqaamkii ugu fiicnaa oo lagu soo dhaweyn lahayna waa tan laga shaqeeyay oo ah gurigii loogu magac daray guriga ummadda Soomaaliyeed ee Somali House. safiir ku soo dhawow Somali House, ku soo dhawow Soomaali ku jecel, ku soo dhawow meel laga filanayo wax badan. wadankan waxaan joogaa waqti dheer. waa the first time aan dhihi karo being Somali it means a lot. It might not mean a lot to us, lakin generationka yaryar ciyaalka hadda aan dhalnay maama waxaa jirto there is no representation without taxation. markaad heshid qof ku represent gareeya waxaad leedahay identity. waxaan noo bilaabmay markaa itijaah cusub oo sheegaya inaanu Soomaaliya wakiil
nooga joogo oo aanu carari karro oo dhibteeda u sheegan karro wacaawna la joogo taasaanu kugu soo dhawaynaynaa kolley Soomaalidaad u imaaday aad iyo aad bay maarta ugu baahnayeen danjira inay helaan aad iyo aad bay ugu baahnaayeen marka soo dhawaad ku leenahay gacmo furan ku soo dhawaad farxadeyda horta runtii caawa lama soo koobi karo ma sha Allah mar hadii ay nala joogaan martidii wadanka nooga timaaday aad iyo aadna aan u tawanahay hadii aan nahay Soomaaliya dadka qurba joogta oo Australia joogo culays weyn baa na saaran waxa weeye aad baan u tawanahay in uu noo yimaado marti ka socoto oo baahidanada u sheegan baahiyo badan baa jiro dadka way ku dhiban yihiin wadanka ma haystaan safiir ma haystaan meel ay ku cararaan wadanka ay joogaan hadee waa iska dhibaato badan yahay meel aan ku nafisna hadii aan helna aad bay muhiim noo. Your Excellency, we're honored to have you here tonight. In Brisbane, can we all stand up and give us some energy in welcoming our Excellence, Dr. Faisal? waxaan rabaa runtii inaan u mahadceliyo gudoomiyaheena jaaliyadda walaalkay Aways Xasan Mooge oo runtii ilaa maalimihii aan meeshan imaanaynay ka shaqeynaya inaan nimaano. Aways wuxuu igu yimid airportka iyo walaalo kale oo Soomaalida la socda runtii waxay noo ahayd dhiirigelin iyo runtii diiranaal iyo walaaltinimo nalagu soo dhaweeyay oo aan dareennay in Soomaalida Australia especially Queensland waxaan dhihi lahaa Brisbane ay kaga duwan yihiin community-yaasha kale oo aan runtii aan soo aragnay marka waxaa la unity-giina iyo soo dhaweyntiina iyo Soomaali jacaylkiina iyo dawladda niyadda u haysaanba inta oo sii dhiirigelinaysa marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalaha dhan oo shalay meesha noogu yimid maanta ka soo qayb galay arrintan taariikhda Soomaaliya maxay naga qori doontaa dadka qurbo joogta ilaa iska fadhina ma sax 100 years from now maxaa la ka qori doonaa xagee ku dambeyn doonaa waxa is weydiiyay su'aashaasi ma jirtaa ama ka fikiray haday jirtana answerka ku soo baxday dee adaga nolosha garay doona anigu waxaan isleeyahay saano kale unity marka oo arko xoogaa cabsida ay gashaa runtii cabsiduna wax kale kuma gasho ma sii jiri doontaa the unity-ga haddaan la ilaalin iskagama shaqaynayso waxay u baahan tahay actively that very committed oo daba taagnaado ilaashada marka waxa isleeyahay taariikhdu maxay qori doontaa waxay qori doontaa dadku xootiya oo yimid oo ayagu un survive garoobay I believe success is not survival is not enough lacag wadankii loo diran is not even enough waxa ka weyn oo legacy aan rabaa dadkan la joogno inaa uga tagtaan waxa soo haray passportka Soomaaliya within 90 days maalinkaan imid Indonesia baa tiimka la fadhiista waxaan ku yiri 9 casho waxaan rabaa passportka Soomaaliya inuu identity-giisa helo dignity-giisa qofka Soomaaliya passportkiisa inuu ku safri karo ganacsatada nin $50 milyan haysta oo fiisa sugaya adduunyada kama dhacdo marka waxa we can't tolerate waxa wasaaradda arrimaha dibadda wasiirka waxa dhihi lahaa Indonesia runtii oo dawladda markaas powerful hadda ka marka la fadhiisto waxyaalahan kala hadla waxay ahayd warrimita ganacsiga aada trade-ka Africa aada believe it or not 90% waa Soomaali Afrikaana u furantahay ma jirto wadan kasta tag waxaan u sheegay from Kenya all the way to South Africa Soomaali ganacsigeeda yaala we are very successful but like waxaan naga maqan corporate thinking waxaan ka sugaynaa Cabdirasaaq Nuruddin baarka maxaa Zim Remittance dadka dhalinyarada generationka soo baxay waxaan ka sugaynaa baarka muxuu ahaa diilay idmo in corporate thinking corporate aan loo fakaro hudo baa waxay kala shaqeyn doontaa waxyaalaha consular serviceska waxaad igaga tashanaysaan qof walba qofku ku haya maskaxda uu jecel yahay walaalkaas oo kale inaan idin noqdo laakiin waa dadkee dada isku direction u socono dada isku direction u socon waa xagee wixii aan ka hadlayay denialki hadda ku jirna denialki oo dhahayn everything is good for us we are the best we're not in the same direction I want you to find it elderly at the end aqoona leeyin dadkii wax loo sheegay lama tiidin laakiin waan isxasuusinaa root cause of find garay ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadan iyo ummadda Soomaaliyeed ee dalka Allah noo hagaajiyo insha Allah jumcada soo socotana waxaan rajaynayaa khudbada in lagu duceeyo doono ya rabbi waa maasantiin thank you very much soo dhawow mudane magacaygu waa farxiyo
waxaan anagoo ku hadlaya magaca hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool Brisbane gaar ahaan Queensland ku nool Brisbane waxaan ku leenahay ku soo dhaw bulshada Soomaaliyeed ku soo dhaw bulshada Soomaaliyeed weentay ku weyn tahay only use calanka kaliya isticmaalo calan kale haysanin ma sha Allah marka waxaan ku leenahay soo dhawow oo ku soo dhaweynaynaa dhammaan anagoo isku duuban waxaan ku rajaynaynaa insha Allah wax qabad wanaagsan wanda ku farxi doontaa insha Allah la kulanka dhammaan kulamadii uu la yeeshay safiirka Soomaaliya ee jaaliyada ku dhaqan ee gobolkan Queensland ayaa waxa ay ku soo gabagabeen si wanaagsan Maxamed Raxoy warbaahinta qaranka dalka Australia magaalada Brisbane